بسم الله الرحمن الرحيم دمان با خيارته شرفta lahay ku soo dhawaada barnaamij cusub oo ugu magac darnay sheeko yaab leh toddobaadka waxaynu ku soo qaadan doonaa nin inaabtidii kufsaday dhalinyarta qaar kamid ah ayaa caan ku noqday dhaqamo xun oo ay caareysteen haday noqoto balwado dil dagaalo joogto ah magaalooyinka waaweyn inta badan waxa ka dhaca dambiye aad u xun mid kamid ah dhalinyarta ficilkan liito isku habar wacan jiray ayaa habeen gurigooda aroos ka dhacay markii arooskii laga dareeray ayuu mid kamid ah dhalinyartii xaafadda inanka haystay kadibna waxa uu la tagay meesha ay isla yaqaaneen telefoon la isla yaqaan ayuu u diray in loogu yimaado mid waliba midda kale ayuu telefoon u diray meeshii ay isugu yimaadeen waxa ayna bilaabeen kufsi ay ku bilaabeen inantii wiilkii xaafadda arooskoodu ka dhacay ayaa la hadleen isagoo ordaya ayuu yimid meeshii waxa uuna ka qayb qaatay kufsigii aroortii ayay inantii sheegtay wixii qabsaday yaalkii xaafadda ayaa la soo wada xiray wiilkii arooska xaafadoodu ka dhacay ayaa waxa uu kamid noqday kuwii la xiray wiilka xaafadda arooskoodu ahayd waxa uu la kulmay wax aan weligii niyada gelin gabadhii la kufsaday waxay noqotay inaabtidii oo aanu aqoon u lahayn ceeb iyo afkala qaad ayaa qabsaday ilaahayow naastur ayaa lagu ducaysan jiray walaashii ayuu kufsi wadareed kaga qayb qaatay adduunka ayuu ceeb iyo qoomumo uga baxay aakhirana ilaahay ayaa garan labadii reer ee walaalaha ahaa dagaal lagu hoobtay ayaa dhex maray reerkii farxadda iyo aroosku ka jiray waxa uu isku bedelay goob dagaal waayahay toddobaadkan sheekada intaas aynu ku soo koobaynaa waa ka kan ku xiga